ورحمة الله وبركاته. دمان ولا له يوجد يوتيوب كي يسود بعد إن الله يمر الباقون وشيهين الدون كده على ذي سوا ولا شيء عشان لذا وحيد الله خليه صب channel كي كسود بعد channel ولا شيء عشان لذا عاو محيدين ودا عشان لذا عاو وحي ودا برنامج وياهي برنامج وكبح جري channel كي عشان لذا وأها gabdhaha single motherka wuxuu ahaa taxano aan ka soo hadlayo mar walba dhibaatooyinka ay kala kulmaan markay kala tagaan raggi ayaga qabay iyo waalidiintii markay kala tagaan ilmihii maxay dhibaato ay marayaan maxayna kala kulmaan hooyooyinka la furay ilmaha lagu daayacay تاسان كهذا إن شاء الله برنامج كنوع سعودي أيان سيد مستريا وبيش كيسة سعودة channel كيجي عشان لدن ولا لها دمان صاحبي ذي خالقها ولا لها وناك سنة وشرفت بدنا ويقول حرير وإداوة وإجور هيو وحن سوق اللي شرفت له جبرت أوقصه بحيه فرتي أنت comment إيسو قرتي ولا عليه دمانتين ميبل بقى كنو شيهين وحنلاي هاي ومهسنتين جساك لا خيرا انت إداوته وناكسن ومقعيزش شرفته وناقة بدن ويقول حريرتر وحنلاي ولا عليه سيدو قال إذن كده آد ودما كسو دباد مر والبا channel كيغا ديكو channel كيني هاي channel كيغا مالبا channel كينا ولا شينا ومر والبا آد وعيقلينتا إذن سو جيبينيس وناك إذن تهم قعيسينا إذن فرط مرة والبا إجعيش هاي إن شاء الله كلا سعودة محيطها مركا وحان كهالينا رقا يهوينك إسقبي وإلمها إسكو دالي وكلا تغي محي إلمهي والدك مركي آبي هو يكلا تغا محي إلمها لو ضايعها ragga ha noqdo ama haweenka ha noqdaan sometimes waxaa dhacda hooyo ilmaheeda laga qaatay oo loo diiday inay aragtada inay aragto loo diiday wadankan mahan waa wadankeedii laakiin wadankan waxaa jirto aabbo ilmihiisa asagana hooyada kala wareegtay oo ilmihii asagana uu arki karin labada dhinac meel walba ay ka imaado waalidku waxa loo baahan yahay xaq waajibka ilaahay wuxuu saaray inay isla walbaagaan calafadu dhamaan wuxuu dhamaan lama dhahayo laakiin waxa loo baahan yahay asagana inuu ilmihiisa daayaco ma ahan ayadana inay ka celis ma ahan waxa jirto dad badan oo kala tagay oo calaf ilaahay kala waday oo ilmahooda islaantay ku fureen كور هيان رجع ويجران واحد جرو رك بدن وبدن half percent إيجا سينا يا ولي half percent إيجا سينا محيط هاي رجع المهوضة ضايعي ويجوسدين ويدالين ناكتي هذه هدا اسكو داعدين ما أهان المهي إناد فرحك قادت واحد جرتا ناك كلو جورسدي مر على مركا جورسدد ما أهان إلما هذا إنها الكفوات أو سبيشال إلما رجع جورسدي إلما هذا عليه أو إلما ضايع عن كهلايا إيه ناقت عسو هذا اللي جورسدي إلما هذا ليست هذا كان أقول ولا شيء أبها هدو قلدين هاي وقالت كجرا هذا أرتد إلما كلام هرو ضايع adiga daraadada mooloo kala tagin lacag ka soo dhig ayaga calafkooda soo dhamaaday adiga gadaal aad imaatay dambi aad ku leedahay ma lahayn laakiin odaygii markuu aatid ilmihii inuu daayacayo oo xaq waajibka ilaahay saaray uu iloobay ilmahaas ba qiimo lahayn qofka la hadli karo waa adiga la hadli kartid because adiga ninka la yahay adigu hoostaada ka soo kacaya
aduu garabkaada yahay ogow maanta dad kuwaas la daayacay beri hadda adigana beri aad kala tagtiin kuwaas la daayacay adigana aad ku darsamaysaa laakiin haysdhiin haddaa haysataay saarada ka dhigo naaga waxaa jiro markay ninkii ay loo haystaan oo naagtay kala tageen ilmaheeda waaba la furay maxay rabtaa dhahay maxay rabaan kuwan maxay naga soo raadinayaan maxay yeelayaan lama siinayo lama yeelayo biil ma la siinayo ma la yeelayo dhahay ay jirto hoos ka ganuunacay kuwaasa sameynayna ilaahay inaad ka cabsatiin ilmaha waalidkooda ha ku dirina abooyinkooda ha ku dirina waajibka maanta isaga saasadaad u diidid beri adigana beri banaankaas kusoo dhacaysaa dariiqa taas gabadhaas fadhisa adigaa soo fariisanaysid horta dee waddankan ku noosha way noolaane way dhaqmay way isdibire laakiin waxaa xun qofka afrika ku nool ama soomaaliya ama dhulkan kale afrikada kale ku nool ama carabaha joogo oo biil leh ku socdo isagaba oo ilmihii lagu daayaca laakiin kii inta joogo wuu noolaana laakiin adigana ogow nin waxaa jiro niman qaar waxaa jiro oo xataa jeegagooda see jaalis bodka loogu goynan daraaddeeda magaciis meel kale ugu soo qorayaan subxaan allah war ilaahay ka cabsado war waxaan liskaga daba imaanaya inay tahay naf aad leedahay xisaabta ku darsado yaa la iloobin in la dhimanayo yaa la iloobin waajibka ku saaran inuu ilaahay ku weydiin doono aawo ilmahaadi intay ku ogtaad ee lagu dha maxaad ku hadli kartaa hadda ilaahay waxba kama qarsan wax kastaad samaynaysa u arkayaa waalidka kuwan hooyada haddaad guursatay ayada hadda ku dhashay way cusub tahay waa la nooshahay waa seen laakiin xaq ma ahan waalidkii ilmaha kala saarayo kuwii asaga markaas la nool u qiimeynayo kuwii laga soo tagay in la iska iloobayo waa dhacdaa wayna badan tahay rag badan oo saas u dhaqmaayo way buuxaan laakiin waajib ma ahan inaa waalidkii saas noqdo ilmahaas beri maxaad ku beertay calool xumo uqdod qalbi xumaan ay ku qaadaan aan weligood isku jeclaanan ilmahaas ilmaha kala maxaana keenay adiga qofka ka dambe waa adiga aabaha because marka adaa ka dambaysa lagu leeyahay kuwan waxaa tustay wanaag kalgacayga iyo xoolaada iyo hantidaada dhan iskugu dartay hoostaaday ku koraayaan laakiin kuwaas hoostaaday waayeen adii hooyadii calaf ilaha idinkala waday single mother ay noqotay ilmihii banaankay taagan yihiin hooyadooda la jiraan laakiin waxaa lagaa rabaa ilmahaada adigoo banaanka ka jirtid hataa inaad ilmaha ka warhaysid qiimaha aabanimo inaad tustid adoo banaanka joogo ani hooyada waa kala tagnay laakiin ani idinka ma kala tagin inaad dhexdeeda ahayd guursatay single father nin ah aada guursatay markaan ku leeyahay waxaa jira naaga qaar ku dhaqmaayo niman taraaga leh oo waddankan joogo oo reerkiisa way soo kala tageen calafka ilaahay ka dhameeyey maxay u kala tageen ma dhahay ama dagaal ha ku kala tagaan ama wanaag ha ku kala tagaan laakiin ilmihiisi $1 aan siinaynin dowladday ka qaadi lahayd muxuu ku sameeyey naagta hadda guursaday jeega ayadaa lagu qoray asagana wuxuu saareen taraag lacag buu sameynaya ilmihii asaga dhalay intuu isaga u diidayo taas ugu qoray maxaa keenay ma ii sheegi kartaa ilmahaada intaad kala cararaysid naagta hadda aad guursatay waxaad ugu qoraysid jeegaada doolarka ilmahaas aad siinays maad u diidaysaa xaqa ilaahay ku saaray inay tahay moogid ma ilowday waajib ilaahay ku saaray inuu yahay rag saas sameeyaa jirto
وانا لس أوجيها ودن كان ولا ثلاث شوجا إلهي وما بنين أنا قف بين آدم حق هذا إلهي إنه مجلس مال علو كلهم إلهي حق إلهي إذا صار الله ينسوت الرجل الصوماليات رجل الصوماليات إلهي حقها صوت الصوت ناجي أديك النفط إذا قبري أديك كلها الله يعني أديك النفط الماركة أصل جاك أديك أنكو قرأ وكليه هاي أنكو قرأ جاك مركو كله أديك هيا هذا ورق جاك اللي بوكسو قرأ الماس أنتو كلا عرض أديك اللي بوكسو قرأ أكتر بري أديك وطاشا صاحبي أديك كاشي تنتهي أديك كاشي تنتهي بكوس أديك واحد لشيء أنا بري متكلم أساس سوء استعجاز good bye لونها كوا أديك هذا شنو طريق ما أنت أديك سميني سدوا جاكيس أديك سوق قريشت أنا متكلم أساس فوق سميني حساب قطاس وأتقنيمه وأحمد يريد كبر أساس لو سميناه وأحمد يريد المها أساس لو سميناه المها هذا وأحمد يران وح ديريه إلهي أم جرته إنها تكون حساب سنتا المها هذا عمل كسوق قبتت حكى علن أبوه حكى علن وحسين لها حكو هركعين وحو قلد أساس سي وضع أباها كو هويوي ما حاجته oo ayagana la biilaayo biil la siinaayo odaygu u roon way kala tageen ilmihiisu isaga iyadoo dan kama laha laakiin ilmihiisu fiirsanayo ma arki kartid ilmihii ma arki kartid adaa hor istaagtay waalidkii ilmihii iyo aabood is arki lahaa adaa hor istaagtay yaa kuu banay inaad ka hor istaagtay ودن قالان جوجا مية ودن قال لقول وذا نوليه حداد أديك أساس ولا عدين أديك أساس واحد إذا كان حي إذا كان حي ساعة لكن هشكو دين والدك يا أبي الميس إنك الليريت واحد جرته دات رج أسرنا قار رج قار وحي سميان أيضا هنتيستو لايف كودو إدسنيه wax kasta heestaan wax ka maqan lahayn ayaa waxa jirto wadanka isla joogan ilmihiisana ka warheynin oo habeenkii waxa ku saxdaan awgeyn haday baahan yahay haday dharkaneen ka warheynin waxbarashadooda ka warheynin bari markii ilmahaas naagta soo qorsato waxa rabta adigana ina aabada soo hor istaagto ma suurtagali waxaan ku tiirta cabeelo meel cilaa kuma qaadanaysid hadhow because adaa meel cilaa ilmaha ooga tagtay intay goor tahay ilmaha hadaayicin ilmaha aad dhashay meel cilaa ooga tagin waa hooyadooda ku ilaali wanaaji ha tusin xumaan ilmihii ha ku beerin calool xumo ha ku beerin aab la'aan ha ku beerin hooyo la'aan ilmeed ha haysato ku ilaalso haday soo barbaaraan bari ay ku soo barbaareen aday gal kale yihiin aday kugu aftirsanayaan ayada kuma aftirsanaan gabadhaas laakiin maanta hooyo iyada u tahay ciil adduunye meel kasta ay kala dhacayso dhibaato kasta iyada la kulmayso xamaal u soo noqotay ku soo tiirta cabeeshay hoodo aan meel ku ogeyn markay guursadaan islaan kale cusub ay guursadaan ilmihii kale meesha ay ka baxayaan islaantii dambo iyo ilmaheeda la ogyahay waajib ma ahan inaad ilmaha daayacdido farax ka qaadid waxaad tahay aabbo waxaad tahay mas-uuliyadii ilaahay saaray nin ilooway ayaa tahay because markaan leeyahay mas-uuliyad ilaahay ku saarada ilowday diinta islaamka waxaa waaye waxay nafartay in lagu dhaqmo way fiican tahay laakiin raggeeni Soomaaliyeed
inta ku dhaqmaysa intaan ku dhaqmaynin way different ay kala yihiin. inta ku dhaqmaysa waa wax macquul oo la xisaabi karo, laakiin intaan ku dhaqmaynina tirada ka batay. maxaa keenay? maxaa bedelay in waajibka ilaahay ku saaray inaad ilowdid? maxaa keenay inaad ilmahaada aad ka warhaynin? maxaa keenay ilmahaada inaad daayacdid? maxaa keenay ilmahaada oo kula joogaa waddankay kula joogaan aan ka warhaynin? naagtaad guursatay cusub oo hadda aad guursatay, haddaad adiga u malaysay inaad raaxad ku noolaanay, inaad ogaatid ilmahaada intay ku dabciyaan. because naagta hadda guursatay nafteeda ha u malayni gabadha nafteeda Soomaalida ama qofka muslimka ah oo ilmaha iyo aabbahay markay kala tagaan ninka ilmihiis kasoo tagay haddaad guursatid waxaan kala dardaarmay raggii ilmihiis kasoo tagay ha ka celin, because adiga beri ilmaha lagaa celina ma diiday mid kala soo baxaysa. insha Allah. Assalaamu calaykum.